madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa shir gudoomiyay kulanka golaha wasiirada Jubbaland oo lagu hadlayay xaaladda dalka. Madaxweyne Axmed Madoobe ayaa golihiisa wasiirada la wadaagay warbixin ku saabsan shirka uu isugu soo tagay ee golaha wadatashiga qaranka. Madaxweynaha Jubbaland ayaa warbixintiisa golaha wasiirada ku faahfaahiyay xaaladda siyaasadeed ee dalka, arrimaha amniga iyo horumarinta dalxiiska Jubbaland. Madaxweynaha ayaa cadeeyay mowqifkiisa doorashada isagoo golihiisa la wadaagay waqtiga rasmiga ah ee Jubbaland ay gelayso doorashada madaxweynaha iyo baarlamaanka. Inkastoo aan la baahin xogta oo golihiisa kaliya uu la wadaagay madaxweynaha Jubbaland, haddana ilo wareedyo ogaal ah ayaa Xamuud Media TV u sheegay in Axmed Madoobe cadeeyay in Jubbaland doorasho gelayso bisha 11aad ee sanadkan. sidoo kale wuxuu madaxweynuhu golihiisa warbixin ka siiyay qodobada la isku mari waayay ee shirka golaha wadatashiga qaranka, kuwaasi oo markii dambe sababay in Axmed Madoobe uu Muqdisho soo tago isagoo ka hon sida ay wax u socdaan. Axmed Madoobe ayaa diiday in madaxda dowlad goboleedyada loo sameeyo muddo kororsi hal sano ah kadibna 2025 dhamaadkeeda ay galaan doorasho qof iyo cod ah. Madaxweynaha Jubbaland ayaa ku tiriyay in doorashada dadban la geeyo dowlad goboleedyada lana baaqsado muddo kororsi kadibna loo diyaar garoobo doorasho qof iyo cod ah oo hiigsiga Soomaaliya. Maxamuud Maxamed Axmed, Telefishinka Xamuud Media, Muqdisho.